munaasabadan waxay ahayd mid beelweynta dhulbahante ee degta deegaanada Waamo la isku yiraahdo ay ku soo dhaweynayeen caaqilka guud ee Faarax Garaad ee deegaanada Waamo caaqil Khadar Daahir Jaamac. Munaasabada waxay ka qabsoontay duleedka magaalada Kismaayo. Waxaa ka soo qayb galay wasiirro, xildhibaano, agaasimayaal, gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Kismaayo, ugaaska guud ee beelweynta harti ee Waamo, isimada dhaqanka, qaybaha kala duwan ee beesha ee ku nool deegaanada Jubbaland. Ugu horreyn, waxaa munaasabada faahfaahin guud ka bixiyay waxa ay ku saabsan tahay wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka Jubbaland, Ciidiid Suleymaan Xaashi, oo ahaa mas'uulkii dhigay munaasabada gogasheeda. gogoshan anigaa dhigay waxayna daba socotay gogol ka horreysay iyo barnaamij hadda muddo aan u malaynaya 3 bilood inay dhan tahay aan ku hawlanahay. sidaad ka warqabtaan bishii November ee sanadkii hore oo hadda November-teedii kale aynu joogno khilaaf ka dhashay dhulbaante dhexdiisa oo waliba deeqooda Faarax Garaad aan hormuud u ahayn baa dhulbaante ka dhex jiray. muddo ay intaas jiitamaysay muddo 3 bilood laakiin ku siman waxaan ka shaqaynaynay oo aniga iyo reerka afka aan ku dhuftay oo dhan dad badan oo waxgaradkooda ahi aanu ku hawlanayn khilaafkaas inuu dhammaado. dadkii isku khilaafayna qof la isugu geeyo iyo group waxay ahaadaan. alxamdulillah rabbil caalamiin wuu noo soo dhammaaday. waxaa intaa dheeray intii barnaamijkaasi jiray waxaa dhintay caaqilkii reer Yuusuf Hayga Abukor, ilaahay u naxariisto, aan faatixada u maro, jannadii ilaahay inuu geeyo. tabdiilkiisii baa muddo hadda mootan yahay. waqtigaas intaa aanu iskhilaafsanayn iyo sidii loo bedeli lahaana hawl naga maqan bay ahaydee hawshaasina way noo soo dhammaatay oo waxaanu isla qaadanay inaanu caaqil u dooranno Khadar Daahir. gogashii tan ka horreysay oo Faarax Garaad oo geedkan aan ku shiray waxaan shaacinay Khadar Daahir inaan isla garanay inuu caaqilka Faarax Garaad ee na hogaamin doonano. Faarax Garaad Waamo marka aan arrinkaas si aan saxaaqaba waxaan kaloo samaysanay xeer Waamood oo Faarax Garaad Waamo ay rabaan inay ku dhaqmaan. xeerkaas iyo shaacinta caaqilkaas maalintii aan geedkan ku qadaynay